maxay tahay saraakiishan aniga iisoo soo fakanaysa maxay tahay saraakiishan aniga iisoo fakanaysa war dowladnimada sidaa ma aha haddii gabadhiina aad ceshanayna tallaabo adag ayaan ka qaadayaa 7 saac keliya ayaa isku jirnaa maxaa la cataabaysaan dowladda sarkaalaha soo hadlay sarkaalada mahuday taabtal ku raadinayaan mise huday sugayeen maxay rabeen sarkaaladu shaqo kale ma hayaan miya hawlo kale la qabto ma jiro maxaan la iga soo galay halkaas fadhiya waa la soo raadsaday waxay marka dowladda caranaysa iyo sarkaalada soo wada hadlay huday raadinaya waa maxay hadduu fiirsada gabadha sidaas u qaylinaysa 3 maalin boosaaso ma joogta 3 maalin boosaaso ma joogta sidaas ayayna iminka u qaylo dhaaminaysaa oo dowladda dhammeedba oo madaxweyne dani hogaaminayay sida ay ugu fafakanaysaa oo leedahay sida imka hordhacad ku daawanayseenba war waa maxay saraakiisha fafakanaysa qaylo dhaaminaysa muuqaalkaas dhowrta dib ayaad kaga fasixi doonaa madax ayaa qabsan doontaan oo gabadhan halkay isla marayso adinka ayaa yaabi doona haasaatee dhammaantii muuqaalka laga dhaasii shargaray soo dhawaad meel baa joogtaan janalka hadaa ku cusubtaa subscribe hadaa hor joogtaan aad baan kaaga mahadcelinaynaa notification furo si saaxiib yaal muuqaalada maalba halkan ku gudbino ay kugu soo dhacaan qofka horeeya la jaan qaadanaa noqoto waa tahay daawadayaal gabadha horta sidaa taqaanaan waa balaayo abuur gabadha sidaa taqaanaan waa balaayo abuur oo yurub markay joogtana sidaa ayay afka u furi jirto maalin walba reactionka qaylo dhaamida dagaalka waxa ka soconaya waxay tirinayso waa yaabi jirteen waaba yaabi jirteenba haatan ayay ka daran tahayba way soo guri noqoto caruurteedii iyadii iminka dalka ayay joogaan oo boosaaso ayay ka degtay sidaad ogadeen oo muuqaalka hore dhammaantiin waa filaya in halkaa ka daawateen oo rogacs loo fidiyo sida ee magaalada ugu soo baxdo magaalada u qaylo dhaamiso oo waxa gaadi la staxtaa waa yaabaysaa gabadha iyadaheedba madax ayaa la saartay laakiin iminka ayay sidaa xaar kaga wareegto sababta waxa weeyaan 2 gabdhood oo walaala ah ayaa gabdha horta sida loogaa dagaal kala dhexeeyay 2 gabdhood oo walaala ah ayaa dagaal kala dhexeeyay haatan meeshii ka degtay iyada oo boosaaso ah iyo gabdhaha meeshii jiraanna iskuma dhawaa gabdhi iyaga markii way soo hadleen waxay soo bandhigeen iyagoo ciidan la jooga iyo waxa dhoortuska dhacaya ma malayn karaysay gabadha iyadaheedna sida lugadana oo markii hore taaba ahayd oo daamuunaheedna iyadana waa soo hadasho haatan xaaladdu markii waxay maraysaa meel aan waxba laga qaban karinin ayay maraysaa gabadha markii waxay leedahay war dowladda dhammeed ayaa tihiin aniga shakhsi ayaa nahay maxaad igu soo fafakanaysaan ayay taagan tahay idinkoo saraakiishiya oo weliba talada dalka haya maxaa meel idinkaga galo aanu la ahay ayay taagan tahay oo dhanka kale waxay leedahayba hooyadii oo sonkor qabtaa xataa waa ka naxisan heerkaas ayaa isla maraysaan anigu shakhsi ayaa nahay mar walbana gabdhahaas iminka idinka daha gadaashiisa ka taagantihiinna mar walba waa la soo bixi karayaaba 7 kilomitir ayaa isku jirnaa haddaa ii baahantihiin meesha joogo waa taqaanaan ii imaada warana xabsi yurub waa kasoo dhagaya yeelada oo yaraanteeda ilaa haatan ayaa weliga xabsi ku jira yeelada oo wax isbarigu ma qabanayo iyadoo markaa afka furatay xaaladdu aad iminku adag tahay oo weliba guri reerkeeda joogta muuqaalkan ayay soo duubtay ilaa dowlad baa soo fafakanaysa cayda waa layga horeeyay aflayaadada waa layga horeeyay hadal xun ma dhihin magaaladeedii baa imaaday waa la soo raadsaday haddana waxa la leeyahay dowlad baa iga xir baabka dowladda sarkaalaha soo hadlay sarkaalada mahuday taabtal ku raadinayaan mise huday sugayeen maxay rabeen sarkaaladu shaqo kale ma hayaan miya hawlo kale la qabto ma jiro maxaan la iga soo galay halkaas fadhiya waa la soo raadsaday waxay marka dowladda caranaysa iyo sarkaalada soo wada hadlay huday raadinaya waa maxay gabadhiini baa qaylinaysa gabadhiina aamusista hadday rabtana Soomaan hadda idin leeyahay gabadhiina ii soo saara diyaar baa ay boosaasa jooga 7 saac baa isku jirna magaalada joogto ma joogo ii soo saara kaalay banaanka ii keenay gabadhiina reerkan dowladda haysta u sheegay cod dheer baa in ku leeyahay ilma adeeraya maxaa soo wada qaylinaysan hudo waysan war meel ay soo martaan daalaadiiniyo banaanka ii ku soo wada ba kulligiin is soo qaawiya hudayaysan caytami waa 7 saac baa isku jirnaa halkay igu soo wada gariireysaan halkay isku kiisoo wada qaawiseen maana idin dhowba anoona gabadhi gacan u qaadi baa ilaa hooyadaysan korku ka xuseen hooyadeed soo wacaysa halkay aniga ma taqaana iga wada hooyaysan halkay ragini gabdhihiiniga iga wada hooyayeen war daartaan iyo fayl soo galade waa idin wasaya gabdhihiina inta ka tirin leebtiine أنا حليها صارنا نيو هدا يوم جوجي هدا هالك جوجي بقى أنا دولتنا أبى يقول ترى بيت كيما بجارسي سنين بقى
waxay sarkaalada soo hadlaya qaylinayaan maxaanii soo galay waa xiraynaa haddaysan aamusinin waniyo adeer macaan soo aqroonimadaydaa saaranay hudanimadaydaa saaranay magaaladaydaana joogaaniyo hadda ay rabtaan halkee dhowcilaha yareer oo caytamaya weligood bay gabdha eraya isdhihi jireen ay igu soo gabanaysaan halkee baa igu soo laalaabanaysaan war hadda ay rabtaan kaale xira daa gurigaasaa fadhiya guriga yaasmiin baa joogaaye halkee ma sarkaal baa soo hadlay gabdhuhu ka hadlay laysma taaban yaa istaabtay maciddaa isku dhawaatay dhowcilahan ayaga qaylinaya soo hadal qaaday de waxay dowladdan ii soo wada fakfakanaysaa maxaa la igu soo fakfakanayaa dee halkee la igu soo gariirayaa adeer meel shishaa ka dagaalamaysaane soo wada baxa sheeka haysaane kartidaydaa saaranay dadnimadaydaa saaranay hudanimadaydaa saaranay niyo filim baa haysaane xabsi dee dad baa loo sameeyey maxaan iga qal ana xabsi muxuu dhibay maanta caqliyay sababta noo xabsi baa gelaya niyo maanta ay aragteen oo aan ka imaado yurub sida caadiga marka dagaalkan tigtaakarada ama kuwa caasimada jooga ha noqdaan ama kuwa gobolada jooga ha noqdaan ama kuwa afrika ee dhankaasi nairobi jooga ha noqdaan ama kuwa yurubtaas fog jooga ha noqdaane tigtaakarada marka waaba dabeecadooda sida ogtiinba reactioni inay isku soo fadhiistaan oo maalba sidaa u qayla dhaamiyaan waaba howshooda markaana maba kusii jirto sheekadu ay halkaa ayay maraysaa gabadhan sidaad ogtiinba laba maalin ma joogto boosaaso ma joogtoba halkaas ayay marka iminka xaalkeedu sii marayaa iyadu waa la daadaansaday sida caadiga iyadu gabdho dagaalka la dhexeeyey ayaa iminka daadaansaday laakiin waxaa la rabay markaanu kale inay u xeeriyaan inay iminka u xeeriyaan inay marti tahay ayaa la doonayay laakiin wuxuu waa dumaro sida anaga aan u fakarayna iyagana u fakarina ayaa laga yaabaa laakiin waqtigaa la taagan yahay qof marti ah oo 11 sano dalkii ka maqneed waxaa la doonayay inay arrintu dejiyaan ayaa la doonayay dagaal walbuu jiro taagtaag walbuu jiro markaa lama doonin marka inay xaaladu halkaa geeyaan lama doonin iyaduna waaba qof kaloo waaba taqaaniinay waa taasaa marka saraakiishii dowladda iyo cid walba u hanjabaysa qayla dhaaminaysa war aniga maxaad igu babaxsanaysaan dowladdii ayaaba leedahay dowladdii ayaaba leedahay anigu maxay igu babaxsanaysaan oo halkaa iyaba isla gaartaba laakiin xaalka siduu haatuu muuqan karayo ayaa marka idiin sawiraya horta waa midda koowaadee boosaaso iyo guudaan puntlandba maamul ayaa ka jira maamulka halkaa ka jirana sida markii loo fiirsho dhanka muqdisho oo tigtaakarada ee loo macaamilaan sharci ka degsa horta ma jiro laakiin xaalkaa mid lasoo faragelin doona ayuu imika ogayaa sida muuqan karaysa oo sababta waxa weeyaan maadaama gabadhan dadka caanka ay ku jirto gabdhahan kale iyagana caan yihiin inay halkaa isku dagaalaan horta xikmad badan keeni mayso gabadhan hoodeedna sonkor ayay qabtaayo eedaduna inay dagaal gasho horta macquul maaha sida marka xaalku muuqan karayo in maamulka puntland ee shaqadan soo farageliyaan horta lama huraan ayay noqonaysaa ama gabdhahan aan xiraan ama si kale sheekada u dhigaan horta inay soo farageliyaan sheekadan waa laga maarmaan waa laga maarmaan gabadhaana iminka dhankeedana iyadana mid ayaa ceeb ku ah oo ah inay dowladdii iminku fafakato ayaa ceeb ku ah oo saraakiisha dowladda iyo dadkan waaweyn ee waaweynka taytalada haya inay kabtooda gashato lama doonin iyadoo haatan sida muuqan karaysa dagaalku wuxuu kala dhexeeyaa laba gabdhood ayuu kala dhexeeyaa laakiin haatan meeshii sheekada gaarsiisay maal rabin inay marka gaarsiiso rabin inay sheekada gaarsiiso dadkaas keliya inay taarget ka dhigato ayaa wacreed laakiin marba dowladda haddii aflagaadeynayso wax walba ayaa gabadhan ku dhici karaya tallaabo walba ayaa laga qaadi karaya iyaduna sida iminka muuqaalka ku daawateen waxayba leedahayba aniga ayaa magac lagu raadinayaaba war dowladda iyo adiga yaa magac dheer dowladda jirta iyo adiga yaa magac dheer hudaay halkaas marka way ka hoos baxday oo saraakiisha amniga sida iminka muuqan karaysa adigu magac kugu maraadinayaan sida iminka muuqan karaysana dagaal dumar ka dhexeeya dowladdu uma kala hiilinayso dowladdu waa dowlad sharci nidaam iyo waxbay hagayaan haddii marka adiga halkaas soo dhaaftina gacanta dowladda ayaa ku dhacaysa ama yaraantaada lagu xiro ama adigu weyn lagu xiree mar kale inaa xabsi dhedhamisid waa lama huraan sidaan haatan ku socota dad waxba ka bedelin inaa xabsi gasho waa lama huraan haatan saaxiibayla marka xaaladda halkaas adag ayay maraysaa gabadhaana waa taasaa weli hanjabaysaa gabdhihii kale iyaguna duulaankaana xaalkooda waa allow sahal oo daqiiqad walba gabadhan dagaal ayay kusoo qaadi karayaan ogaada marka dagaalkan iyo baabahdan iyo cagjugleyntan iyo dhowrtuskanna wuxuu imaanayaaba
gabadhaan oo magaaladii laba maalin dhammaan waxay joogto iyagoo dagaalkan haatan marka kusoo aadaya marka maxaa kula haboon in arrintan iminka lagu xaliyo hadduu muuqaalkan kusoo gaaro marka kiiskan laba dhinac dhageysana yaa qaladka saari lahayd gabadhaana maxaa kula taleed dowladda Puntland dhankoodna fariin noocay u dirleed aragtoo muhiim muuqaalkan si share garay